warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar galinkii dambe maanta ka dhacay degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose kaasi oo lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Allah u naxariistay marxuum Cumar Maxamuud Cilmi Cumar Carabi sida wararku ay sheegayaan kooxo hubeysan ayaa bam gacmeed ku tuuray hoyga marxuumka oo ku yaala meel ku dhow saldhig ciidan iyadoo dhaawac culus uu ka soo gaaray weerarkaasi bamka lagu tuuray gudoomiye ku-xigeenka iyo laba kamid ah ilaaladiisa durbawa dhaawaca gudoomiyaha ayaa waxa loola soo cararay magaalada Muqdisho waxaana ugu dambeyntii maqribnimadii caawa ku geeriyooday isbitaalka weyn ee Digfeer ee magaalada Muqdisho kaasi oo xaaladiisa lagula tacaalay sanadkii 2018 walaalkiis Maxamed Carabi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha Hoose ayaa u dhintay qarax lagula egtay magaalada markii xarunta gobolka Shabeellaha Hoose haddaba Cabdiweli Calo online waa wariye ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu saaxiib dhow la ahaa Allah u naxariistay gudoomiye Cumar Maxamuud Cilmi Cumar Carabi waxa uu ka waramayaa taariikhda gudoomiyaha iyo waxyaabaha ku xasuusan doono galabta koobi tobankii iyo barkii galabnimo maanta ayaa bam gacmeed kooxo waxay ku weerareen guri uu ka degan yahay xaafad dhanka galbeed kaga beegan degmada Afgooye gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellaha Hoose ee dhanka arrimaha bulshada Cumar Maxamuud Cilmi oo loo yaqaanay Cumar Carabi Maxamed Cabdinaasir ayaa loo gudoomiyuhu xilliga shaqada ayuu ka rawaxay markaas ayuu gurigiisa tagay gudoomiyuhu wuxuu deganaa guri weyn oo ganjeel leh sida la sheegay kooxaha bamka gudoomiyaha la eegtay waxay soo istaageen aasaafka hore ee guriga gudoomiyuhu degan yahay mana lahayn guriga difaac hore oo kor laga ilaaliyo sidaas ayay markaa go'ay waxa u suurta gashay in ay bamka ku tuuraan goobtii gudoomiyuhu fadhiyay oo ah aasaafka hore gurigiisa halkaa waxaa ka soo gaaray gudoomiyaha dhaawac xooggan waxaana gudoomiyaha firkiska bamka uu sameeyay ay ka saameeyeen inta badan qaybaha sare ee jirkiisa sida la sheegay dhaawaca gudoomiyuhu wuxuu si aad ah saameynta xooggan ay ka soo gaartay dhanka caloosha iyo markii la qaadayay waxaa la sheegay gudoomiyuhu inay gacan ka go'need isla markiiba waa la xararay dhaawaciisa waxaa la geeyay isbitaal Digfeer ee magaalada Muqdisho intaas kadib gudoomiyaha xaaladiisa aad ay u sii darneed waa uu geeriyooday Allah u naxariisto Cumar Maxamuud Cilmi Cumar Carabi Maxamed Cabdinaasir ayaan le aniga Cumar Carabi shakhsi ahaan waxaan bartay sanadkii 2012 wax ku dhow 8 sano ayaan saaxiib ahayn wallahi ma aqaan wax si aan ku sifeeyo waxa uu dhamaanba Cumar Carabi kulansaday ama uu ku sifoobay sifooyinka dadka wanaagsan ma ahaynin dadka xasda ma ahaynin ka shaqeeya ku dirka iyo dhibaateynta dadka waxa uu ahaa nin shacabkiisa jecel u maleymaya caawa in uu jiifanayo nin maalin ay isbarteen Cumar Carabi murugta laga qabo aawadiis geeridiisa gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaan iyo dadka yaqaanay ilaa iyo dalka dibadiisa caawa geerida Cumar Carabi ayaa isqabtay qof walba oo Cumar garanaya caawa damaladayo Cabdiweli mas'uul marka uu ka tirsan yahay hay'ad dawladeed gurigiisa waxa ilaaliya ciidamo kala duwan gudoomiyaha bamka lagu weerar gurigiisa ma joogin miya wax ciidan ah oo ilaalinaya runtii gudoomiyaha gurigiisa guri weyn oo wareegsan buu yahay difaac hore laga ilaaliyo dadka nawaaxis guriga maraya ma uusan jirin guriga marka ganjaalka la xiro kadib guri balaaran oo baaxad leh buu ahaa dugsiga gurigiisa uu tahay gudoomiyaha marka guriga qaybta jeefka uu yaalo ilaa qayb banaanka ah iyo qayb dhaxo oo la fadhiisto oo basad weyn oo banaan ah ayuu leeyahay marka difaac hore oo ciidamo ah oo joogay meesha ma aysan jirin bamka qofka tuuraya dabcan waxaa la maleynayaa qofka tuuray bamka inuu soo istaagay aasaafka hore guriga kadibna bamka wuxuu u gudbayaa meesha gudoomiyaha iyo tiimkiisa ay fadhiistaan oo gurigiisa banaanka hore ah oo inta aadan gudaha hore u sii aadeen gurigiisa ah
marka nasiib wanaag dad badan lama aysan joogin maanta sida la ii sheegay laba wiil baa guriga la joogtay oo kamid ah ilaaladiisa iyagana wax yar oo firir oo aan badneen sida aan maqlay oo weli aan si xaqiiqin maadaama aan si weyn uga naxna geerida gudoomiyaha oo aan xog kale ba la sii raadi karinba marka ayaa sida la ii sheegay wax gaareen marka gudoomiyuhu meel xaafada buu degnaa sida aan ku sheegay marka horena ma uusan ba ahayn dadka mas'uuliyiinta ah ee kibirka badan ee qaaba ee shacabka iskala weyn ma ahayn nin xaafada uu degan yahay laga nacban yahay maadaama difaac uu samaysan lahaa waxay keeni lahayd in xaafada dadka degan qaarkood xataa ay ka guuraan guryaha u dhow marka maba ahayn banin markaad eegto shacabka caadiga ah kamid ah ayuu ahaa dadkana ma iska dhex saari jirin isla weynna ma ahayn allah u naxariisto saaxiibkii Cumar Maxamuud Cilmi waa tahay bal ka waran hay'adaha ammaanka ilaa hadda howlgalla ay sameeyeen oo lagu soo qabanayo dadkii ku lug lahaa falkaasi ma jira maxamed dalka booliiska degmada waxa ay sheegeen in ay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyay falkaasi balse marka aad fiirisid saasaanta uma muuqdaan oo waxay la mid tahay waa ku daba jirnaadii hore oo dadka Soomaaliyeed lagu seexin jiray marka raggii falkaas geystay qabta sida la ii sheegay goobta waa ay ka baxsadeen inkastoo booliisku ay sheegeen in dadkaasi ku raad joogaan balse ma ka hor dhici karno laakiin waxay u muuqataa in dadkaasi ay yihiin kuwa baxsaday maamulka gobolka iyo kan degmaduba si rasmi ah u xaqiijiyeen geerida gudoomiyaha runtii qof walba si weyn bay u saameysay xubnihii maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo kuwa degmooyinka Anfariir baa ku dhacay gebigooda nin walba barkiisa gaarka ah Facebook ayuu taxshigu soo qoray ma si loo fiirina in ay ka xun yihiin oo kaliya mooye wax kale hadda tilaaba oo la qaadi karo oo ii muuqda ma jiraan warar kale waxaa jiro sheegaya sanadkii 2018 in walaalkiis isna ahaa gudoomiye ku xigeen lagu dilay marka bal arinkaasi faahfaahin ma naga siin kartaa runtii sida xogta aan ku hayo wuxuu ahaa shaqsigaas wala dhashay gudoomiyaha caawa geeriyooday Cumar Maxamuud Cilmi yarkaana waxaa la oran jiray oo gudoomiyaha oo hadda booska uu ka dhintay ayuu hore u ahaan jiray walaalkiis ka weyn sida aan xogta ku hayo waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Maxamuud Cilmi ninkan caawa dhintay saaxiibkii ah Cumar Maxamuud Cilmi oo xilka gudoomiyaha hadda hayay buu ka weynaa waana ninkii xilka uu ka dhaxlay ninkaas sida aan maqlay waxa uu ku dhintay gobolka Shabeellaha Hoose qayb kamid ah gaar ahaan dhanka Marko inay tahay aan jeclahay asaga iyo gudoomiyihii hore Marko Nuuri Cali Faarax inay isla dhinteen ayaan jeclahay marka ninkan waa da'dii ka yareed waxa uu kala wareegay xilka walaalkiis ku dhintay gobolka Shabeellaha Hoose isla qarax sidaan oo kale horay loogu dilay maamulka koonfur galbeed ma ka hadleen ilaa hadda geerida gudoomiyaha ilaa iminka barta gaarka ah ee wasaaradda madaxtooyada wafaafinta madaxtooyada koonfur galbeed ayaa looga tacasiyay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Shabeellaha Hoose geerida ku timid gudoomiyaha waxaana la filayaa in munaasabad weyn oo lagu baroor diiqayo gobolka lagu qaban doono waqtiyadan lagu soo aadan hadii Ilaahay yiraahdo adigu waxaad aheedeen saaxiibo isku dhow maxaad ku xasuusataa shakhsiyan wallahi Maxamed Cabdinaasir ayaan le Cumar Maxamuud Cilmi waxaan ku xasuustaa markaad dhahday waxa ugu soo dhacay waxyaabo fara badan Cumar ma ahayn nin dadka ka daba hadla ma ahayn nin waxa uu aaminsan yahay qarsada ma ahayn dadka iskala weyn Cumar inuu ku xumeeyo wuxuu ka jeclaa inuu ku wanaajiyo waana waxyaabaha keentay caawa in gobolka dhan iyo meelo badan oo dalka ah la wada gariirto oo si weyn laga dareemo hadii aad fiiriso baraha bulshada sida aad u isticmaalaan Facebook iyo waxyaabaha la midka ah caawa wax kala laba hadlayo tacsida iyo baroor diiqda gudoomiyaha loo sameeyo ayaa saaran Cumar marka wuxuu ahaa ahlu diin ah oo hadii Ilaahay ku roon yahay si tusbixiis aan gacanta ka bixin Ilaahaygiis ku xiran ma ahayn nin baqo wuxuu ahaa nin waqtiga aaminsan oo geerida aaminsan
aniga dhowr jeer baan safar isla galnay meelo fara badan oo gobolka ah oo dhul inta badan aysan qof mas-uul ah uusan hataa damci karin inuu maro ayaan isku soo marnay oo meelo fara badan oo gobolka ka mid ah waxaan kula kaftami jiray gudoomiye aniga online ah ma ihiin sidaas haddii ilaahay ku roon yahay u weyn adiga ayaa iga darane haddii meelahan lagu helo see yeelaysaa markaan dhow wuxuu dhihi jiray waa u simarnahay dhimashada waqtigiina dhimanaya ayaan online aniga aaminsanaya marka ma ihin nin boqo marka taas waxay ku cadaynaysaa kalsoonida uu ku qabay allihii abuurtay in maalinta uu laaban doono ay tahay maalin astaysan oo aan maalin loogu daraynin marka waa geeri naxdin leh way nabad taabatay aad baana haddii ilaahay ku roon yahay wax laga xumaan karana ma ahan oo xagga alleh mar walba loo laabanayaa waxaan kusoo koobi lahaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun haddii aad ku cusub tahay janalkeena sahanka wararka fadlan subscribe inoo saar aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb mahadsanid